wakaalada wararka Suudaan ee Suna ayaa maanta qortay in kulan qadka taleefanka uu dhexmaray ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdulla Hamdouk oo shalay ka badbaaday qarax lagu qaarijin lahaa iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii ismidaaminta ee shalay uu ka badbaaday ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdulla Hamdouk. Sidoo kale wakaalada wararka Suudaan ee Suna ayaa qortay in madaxweynaha Soomaaliya uu dowladda iyo shacabka dalka Suudaan u rajeeyo mustaqbal wanaagsan. Dhinaca kale ra'iisul wasaare Cabdulla Hamdouk ayaa weerarkii shalay uu ka badbaaday kala hadlay madax kala duwan iyo dowlado waxaana ka mid ah Sacuudiga, Urdun, Masar iyo ururada iskaashiga caalamiga ah ee qaramada midoobay, ururka Islaamka ee OIC, ururka Jaamacadda Carabta, ra'iisul wasaarada dalka Jarmalka Angela Merkel, iskaashiga Khaliijka iyo Qatar. ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdulla Hamdouk ayaa ka badbaaday weerar isqarxin ah lagu qaarijin rabay iyadoo qaraxaas uu qabsaday gaarigii uu la socday ra'iisul wasaaraha balse aysan cidna wax ku noqonin.